xulka qaranka Soomaaliya ayaa galabta gaaray guushii ugu horeysay ee tartanka kubadda cagta ee Sakafa Senior Challenge Cup ee ka socda dalka Uganda iyagoo kaalinta saddexaad ka galay kala sareynta gruubka waxaana hal eber ay ku garaaceen xulka kubadda cagta Burundi oo ay la ciyaareen xulka qaranka Soomaaliya ayaa kulankan soo galay iyagoo u baahan guul kadib markii ay guul darro kala kulmeen kulankii kan ka horeeyay xulka kubadda cagta ee Uganda koobka Sakafa Senior Challenge Cup ee 2019 daqiiqadii 40aad ayuu xulka qaranka ee Soomaaliya hoggaanka u dhiibay ciyaarta kadib markii uu xidiga qadka dhexe ee Umar Maxamed gool qurux badan u dhaliyay xulka Soomaaliya wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya xildhibaan Khadiija Maxamed Yiri oo la hadashay idaacadda kulmiye Muqdisho ayaa guul taariikhi ku tilmaamtay guushii Soomaaliya galabta ay ka gaareen dhigooda dalka Burundi waxaana ay sheegtay Soomaaliya ay ku tilaabsatay isbedel dhanka kubadda cagta ah Soomaaliya waxay sameynaysaa horumar isboorti bana wax ilaahay loogu mahadiyo in ay helaan dhalinteena horumarkaas isboorti waqti burbur badan oo sanado badan dalkeenu soo maray marka ka soo muuqashada meelo badan aan ka soo muuqano horta waa wax ilaahay loogu xamdiyo ciyaarta maanta Burundi Soomaaliya tartankaas maalmahan socday Sakafa sida ay Soomaaliya horena waxaan la soo ciyaarnay walaalahan reer Djibouti Uganda maanta waxaana u dhiman hadii Allah ogolaado waxaan rajaynayaa iyo meelihii aan ka soo muuqan jirnay Soomaaliya lagu yaqiinay inaan ka soo muuqano waana u hambalyeynaya xulka qaranka Soomaaliyeed iyo macallimiintooda iyo xiriirkooda iyo dhammaan bahweynta isboortiga oo ku wada faraxsan waa hiwaayada saddex kulan oo ay Soomaaliya la ciyaartay dalalka Djibouti, Uganda iyo Burundi ayay soo hoysay 4 dhibcood haddaba heerka guruubyada tartankan inay Soomaaliya ka soo baxdo maxaa ka xiga imise dhibcood ayay u baahan tahay waa kana falanqeeyay arrimaha ciyaaraha Cabdiraxmaan Maxamed Kismaayo markii la gruubka natiijahan waxa uu natiijo wanaagsan wadanka Uganda oo tartankan martigelinaya sanadkan 2019 Burundi 2 kulan laga adkaaday natiijadaas u wanaagsan ma laha tartankan boorsooyinkooda ka horan doonaan Soomaaliya Djibouti bin hal kulan laga adkaaday min hal kulan ay adkaadeen min 4 dhibic leeyihiin Soomaaliya waxay ku xiran tahay kulanka labaad inay ka adkaato Eritrea si uu xaqiijisto gruubkan waxa lagu baahan kaliya in 2 koox ka soo baxaan marka rajada Soomaaliya marka ma aad u liidataa mise waa mid fiican rajada Soomaaliya tartankan markii la eego guushii galabta wax badan ka saaciday waxay ku xisaabtami doonaan kulanka soo socda inay ugu yaraan barbardhac helaan waliba Djibouti ayagana isku farqi goolasho dhibaca markii la eego isku yihiin Djibouti waxay la ciyaari doontaa wadanka Burundi Soomaaliya Eritrea la ciyaari doontaa Uganda had kaliya banaanka taalo tartankan marka Soomaaliya ugu yaraan waxa uu weyn qanay karto waxa banaanka timaado inay guul hesho maaha markii ugu horeysay ee xulka kubadda cagta qaranka Soomaaliya uu ka qayb galo tartanka bariga iyo bartamaha Afrika ee Sakafa Senior Challenge Cup haddaba kulamadii hore ee Soomaaliya Djibouti ee la gashay barbardhac iyo midkii Soomaaliya la garaacay ee Uganda iyo kii galabta marka loo eego maxaa iska bedel kubadda cagta Soomaaliya iyo heerka shaxda ee tababaruhu galabta adeegsaday su'aashaasi waxaan weydiiyay wariyaha ciyaaraha idaacadda kulmiye Maxamed Shuuriyo Nuur maxaa keenay isbedelka kulankan Soomaaliya Burundi markaynu qiimeeyno sidaad la socotid xul qaran marka la diyaarinayo waxay u baahan tahay in waqti ay ciyaartoydu isla sii qabsadaan xulku la sii xareeyo inta muusan marin xulka qaranka Soomaaliya macallin iyo 3 ciyaartoy ayaa ka tagay Muqdisho waxay gaareen Kampala ciyaartoy dalal kala duwan ka yimi ayaa tagay magaalada Kampala waqti ma jirin tartanku uu bilaabmay ciyaarihi ayaa hore laga galay marka taasi waxay keentay in loo baahnaado in macallinka ciyaartoydu uu ku tijaabiyo garoonka waxa laga yaabaa falsafad inuu adeegsaday 4-3-3 ama 4-2-3 hal ah kulamadii kala duwanaa ciyaartoyduna sidaas oo kale qaarna uu keedka ka soo saaray kulamada qaarna uu keed gelinaya marka in sidaas uu macallinka isbedelo u sameeyo 3 ciyaarood waxa keentay inuusan waqti ku filan u helin in ciyaartoydan la isku wada helo tababar la sii wada siiyo hal system ama hal qaab loo dejiyo marka shaxda ugu fiican galabta ayuu garoonka ku galay waana tan keentay inuu Burundi gool wax kaga badiyo Uganda ayaa gruubkan ku hogaaminaysa 9 dhibcood halka Eritrea ay soo gashay kaalinta labaad kadib markii 3 eber ay ku garaacday xulka Djibouti iyadoo leh 6 dhibcood halka Soomaaliya ay ku jirto kaalinta saddexaad iyadoo leh 4 dhibcood waxaana tartankan gabi ahaan ba isaga haray xulka kubadda cagta ee Burundi